hay-adda Pentagon ayaa ku howlan dhisitaanka tiknoolajiyad cusub oo qofka xiran ama wata mar aan fogeyn la sheegay in ay siin doonto awood uu ku xukumo agabyo kala duwan isaga oo aan far qaadayn. Professorka lagu magacaabo Jacob Robinson oo ka tirsan jaamacadda Rice University sidoo kalena daraasad xiriiriye ka ah mashruuca daraasaynta gaashaandhigga ee Defense Advanced Research Projects Agency oo loo soo gaabiyo DARPA ayaa u sheegay warqadka Express in uu meel wanaagsan marayo barnaamij lagu xiriirinayo maskaxda aadamaha iyo kombiyuutarka oo la yiraahdo Brain Computer Interface loona soo gaabiyo BCI kaasoo awood u siin doona aadamaha in uu xukumo raxan gaadiid ah oo aan cidina wadin isaga oo kaliya ka fekeraya falka uu rabo in uu qaado. Tiknoolajiyadan ayaa meesha ka saaraysa kala go'naanta xiriirka maskaxda iyo jirka oo ay muddo u dhaxayso. Waxaa jira waqti u dhaxeeya fikirkayga iyo dhaqaaqa muruqa, balse marka aan horumarino aaladan waxaan helaynaa in ay maskaxdu la xiriirto dunida bannaanka iyadoo aan far la dhaqaajin, taas oo dedejinaysa isgaarsiinta, ayuu yiri Robinson. Mashruuca daraasaynta gaashaandhigga Pentagon ee loo soo gaabiyo DARPA ayaa ku rajo weyn inay tijaabiyaan farsamadan cusub 4 sano ee soo aadan. Hal caqabad oo hortaagani waa in ay fasax ka helaan hay-adda cuntada iyo dawada heer federaal ee Food and Drug Administration loo soo gaabiyo FDA. Qofka ayaa waxaa madaxa loo gelinayaa koofiyad ka kooban nudayaal ku xiran dareen wadayaasha maskaxda, balse waxay sidoo kale doodi ka taagan tahay waa haddii ay suurto gasho dhanka anshaxa iyo in agabkan si khaldan loo adeegsan karo. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.